بسم الله الرحمن الرحيم وعندها وضيال ومركلة iyo waraysiga toddobaadka waxaana marti inoogu ah sidaad arkaysaan xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi dalka Kenya xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi waa markii saddexaad ee xildhibaanku kursigan uu ku guuleysto sidoo kale dhawaana waxa loo doortay gudoomiyaha xildhibaanada laga soo doorto magaalada Nairobi degmooyinka ay ka kooban tahay xildhibaanay markii hore ku soo dhawow TV-ga Universal marka labaad waxaan jeclaan lahaa doorashadii inkastoo soo jiitantay haddana way dhamaatay guul bay ku dhamaatay maxay kula muuqatay markii la yiri dib loogu laabto kuraasta qaarkood waad mahadsan tahay xamdi marka hore waxaan jeclahay in shacabka Kamakunji iyo khaasatan dadka aan la dhashay Soomaaliyeed inaan u mahadnaqo sidii wanaagsaneed ay u soo baxeen sidii walaaltinimada lahayd ay ii garab galeen khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed oo xil weyn iska saaray in kursigaasi aan soo ceshano ilaahay mahadi waan ku guuleysanay waanan u mahadnaqayaa aniguna waxaan ballan qaaday inaan inaba ka seexanaynin hawsha ay diibeen mas'uuliyadda ay diibeen culus ilaahayna aan ka baryo inuu ii fududeeyo inaan ka soo baxo una shaqeeyo si daacadnimo ah u shaqeeyo si cadaalad leh kana shaqeeyo midnimada iyo xoojinta dadka Soomaaliyeed ee xaafadda Islii ku nool iyo horumarka iyo dhismaha deegaanka Kamakunji su'aashan aad waraysatay runtiis waxay ahayd arrin lama filaana wali ma dhicin taariikhda adduunka in doorasho dhacday oo dhamaatay in maxkamadda ay dib u dhigto oo qaaradda Afrika la joogo naxdin weyn bay anaga nagu ahayd maadaama qofka guuleystay uu ahaa madaxweynaha xisbigeena ka tirsanaa iyadoo sidaa tahay haddana laakiinse madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu muujiyay wadaninimo iyo maamul wanaag asagoo ogolaaday go'aankii maxkamadda ogolaadayna doorashada in dib loogu noqdo kana soo qayb galay doorashada markii dib loo celiyay marka run ahaantii asagu wuxuu muujiyay inuu diyaar u yahay inuu u hogaansamayo maxkamadaha dalka inuu u hogaansamayo dastuurka wadanka iyo sharciga wadanka u yaala taana runtii aad baan ugu faraxsanahay waayo anigu nafahantayda waxaan jeclaan lahaa inuu sidaas sameeyo sidii laga filayay uu sameeyay maantana maadaama la dhaariyo madaxweynaha wadanka uu yahay waxaan anigu ka filayaa in uu waxa u wanaagsan oo danta u ah wadanka uu sameeyo xagga cadaaladda xagga sinaashaha xagga horumarka iyo dib u dhisidda wadanka waxaan ogahay madaxweynaha inuu nin fiican oo arintaasi u soo jeedo inuu yahay mas'uuliyadda culus ee loo dhiibayna uu si fiican uga soo bixi doono mucaaradkan anigu waxaan ku leeyahay maadaama tartanka ka soo qayb gasheen wadankeenana uu dastuur iyo dimuqraadiyo ku socdo laydina xaggii doorashada iyo laydinka adkaaday waxaa fiican inaad dib ugu soo noqotaan nidaamkii dimuqraadiyada iyo dastuurka wadanka oo aad isu diyaar garaysaan doorashada 5 sano ee soo socota waayo mucaaradaha adduunka oo dhan haddaad aragto reer galbeedku haddii laga adkaado way ogolaadaan ma rabaan in wadankooda uu burburo ma rabaan inuu khilaaf ka dhaco ma rabaan in shaki shicibka uu ka galo maamulka u yaala wadanka iyo dastuurka wadanka u yaala laakiin mushkilada qaaradda Afrika haysato mucaaradkeeda inta badan mucaaradka Afrikaanku ma ogola in laga adkaado magaca uguma jirto guuldarro uguma jirto wadan kastaba haddaad eegto xisbiyada mucaaradka Afrikaanku marka doorashada ay dhacdo waxay oranayaan waana la xaday ma ogolin taasna waxay xiisad iyo mushkilo iyo dagaal iyo isjiidasho ayay ka abuuraysaa wadanka kama fikirayaan danaha guud ahaan ee bulshada dhaqaalaha iyo horumarka iyo xasiloonaanta wadanka marka waxaan ka codsanayaa walaaladayda mucaaradka baarlamaanka way ku jiraan si buuxda uga soo qayb galeen wixii toddobaadkii ina dhaafay mas'uuliyadoodii mucaaradnimada baarlamaanka way qaateen waxaan ka codsanayaa kuwa dibadda joogana inay sidaas oo kaleeto ay danaha guud ahaan iyagoo wadaniina inay ilaaliyaan wadanku doorashadii way u soo dhamaatay wixii la dooran lahaa waa la doortay wixii dhacay way dhaceen marka inaan dib isugu soo urursano oo aan gacmaha isqabsano oo aan wixii dan u ah wadanka horumarkiisa iyo dhismihiisa bulshada mucaaradkana in la bogsiyo oo la soo dhaweeyo oo lala hadlo oo mashaariic iyo horumar laga sameeyo gobolada ay ka yimaadeenna
waa lagama maarmaan haddii loo eego dhanka dowladda oo markaa midnimo iyo wanaag laga shaqeeyo aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa taa kana shaqeyn doona markii saddexaad kursigan lagu doortay cod baad ku timid gudoomiyaha waxa lagaaga dhigay degmooyinka Nairobi xildhibaanadii kasoo baxay sidaadoo kale qofkii ugu horeeyay ama islaam ama Soomaali ah oo kursigan degmada ka qabtay waa tahay dhowr mar waa soo laabatay maxaa la dhihi karaa fursadaha aad haysato kaga duwan tahay kuwii ka horeeyay runtii marka ugu horeyso waa fursad fiican waa sharaf bay anigu ii tahay Yuusuf ahaan sharaf bay u tahay dadka Soomaaliyeed dadkina shafrayna waxaan ugu mahad celinaynaa hawlqabad anigu waan u shaqeeyay gobolka iyo deegaanka Kamukunji xagga horumarka 5 sano ayna dhaaftay wixii aan ka qaban karay jidadka dugsiyada iyo sidii loo caawin lahaa shacabka aad baan ugu shaqeeyay inkastoo nin jaban oo burburay aan ahaa shacabkana waxay arkeen hawlqabadkayga inuu fiican yahay marka waxay garteen inay mar kale igu soo celiyaan marka run ahaantii shacabka ayaan ku xiranahay shacabka ayaan isu dhownahay mas'uuliyadda la ii dhiibayna anigu ma yaraysanine si wadaninimo ayaan ugu shaqeeyay si daacad ayaan ugu shaqeeyay sidaas ayaanan ku sii wadi doonaa waxaanan jeclahay 5 sano ee soo socota hadduu ilaahay nafta noo daayo in wixii dhammaystirnaa xagga horumarka xaafadda jidadkeeda ha noqoto bulaacadahan meelahan sewage iyo drainage-ka dhibkeeda ha noqoto dugsiyadeenna ha noqoto iyo xagga waxbarashada caafimaadka ha noqoto qashin ururinta iyo nabadgelyada dadka Soomaaliyeed ee aad ugu dhibaataysan xagga ID-ga inkastoo u fududayno oo iminka ay xaafadda ka qaataan laba meelood laga qaadan karo inaan sii fududayno dadka baasaboorada u baahan ee dhoofi raba ama meelaha tagi kara inaan u sahlano ardada reeraha tabaalaysan ee aan awoodi karin inay waxbarashada ka bixiyaan laakiin se dadaalay inaan gacan qabano oo aan wax u qabano oo aan gargaarno oo caawimaad siino wixii wadanka gudihiisa wax lagu bari karo iyo wadanka dibadiisa inaan ka shaqeyno waxa intaasi dheer inaan Kamukunji ay qoomiyado badan ku nool yihiin Soomaali kaliya ahayn inaan shacabka deegaanka Kamukunji aan isu soo dhaweyno oo xagga nabadgelyada wada shaqeynta wada noolaashada isdhaxgalka aan aad iyo aad uga shaqeyno inaan sii xoojino xiriirka dadka Soomaaliyeed ee faraha badan aan ka shaqeyno wada jirkooda wax wada qabshadooda si fiican iyaguna ay uga faa'iidi lahaayeen xildhibaannimadayda sidii ay uga soo qaybgeli lahaayeen maamulka xaafadda deegaanka iyo magaalada Nairobi iyo wadanka guud ahaanba inaan abuurno dhalinyaro cusub oo rag iyo dumar bale gabdho iyo wiilal leh oo ka soo qayb gala bulshada maamulkeeda iyo siyaasadeeda sifa aan uga sii muuqnaano maanta iyo beritaba ayaan ku tala jiraa midnimada dadkeenana inaan aad iyo aad u xoojino xildhibaan marka aad fiiriso hadda miisaanka ay ku leedahay Soomaalida siyaasadda dalka xildhibaanaad tahay muddana waa ku dhex jirtay siyaasadii ma isdhihi kartaa ama loo arki karaa inuu jiro isbedel ay fahmayaan bulshada Soomaaliyeed laftirkooda inay awood u leeyihiin inay ka qayb galaan waxa socday siyaasadda taasi shaki kuma jiro waayo anigu waxaan xusuusnahay mar hore anigu markaan soo korayeen dugsiga hoose ku jiray Soomaalidu waxay ahayd dad la ugaadsado oo aan xaq ku lahayn wadanka gobolka ay ka yimaadeen meel dhaqaalaheedu uu burbursan yahay oo kala daadsan wax u hadla ama mas'uuliin qiimo leh oo la yaqaanana aanay jirin maanta aad baan uga duwanahay inkastoo dhibaatooyin ay iska jiraan had iyo jeerba marka tilaabo qaadaba ay u baahan tahay tilaabo kale inaad sii qaado dhanka kale haddana maanta horumar badan baan gaarnay isli haddaad aragto dhaqaalaheeda annaga gacanta ku hayna annaga ugu xoog badan dhaqaale ahaan qoomiyadaha lagu qiyaaso inay ugu xoog badan yihiin Nairobi baan ka mid nahay xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda kursi baan ku leenahay magaala madaxda Nairobi oo ku lahayn Kamukunji hal kursi baan ku lahayn dawladda hoose iminka 3 kursi baan ku leenahay isli North waa nin Soomaaliya Airbase waa nin Soomaaliya California waa nin Soomaaliya taasaba ku muujinaysa 5 sano ina dhaaftay halka aan soo gaarnay dawladda sare haddaad aragto meelo badan baan kaga jirnaa ilal badan baan ka muuqanaa xagga siyaasadda
xagga waxbarashada kumanaan arday baa sanad kasta noo soo baxa berigii horeeto waxaa jirtay qoys iyo badan oonan lahayn hal qof oo ka soo baxay dugsiga sare ama se jaamacad dhameeyey maanta waxaad arkaysaa qoys kasta dugsiyada sare in loogu jiro gabdhuhu ma muuqan jirin berigii hore gabdhaheena iminka waxaad arkaysaa dugsiyada sare jaamiciin bay noqdeen meelo badan bay kasoo baxayaan oo kasoo muuqdaan weliba isbedelkan dastuurka ku dhacay gabdho Soomaaliyeed baa gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed baa laga soo doortay kursi ku yaala Ijaara Sofia waxaan dhicin bay ahayd berigii horeeto waxaa laga soo dooran jiray nomination bay ku soo gali jireen marka dhan kastaba hadaad eegto ragga iyo dumarka Soomaalida ee Kenya xagga siyaasadana xoogooda uu soo kordhaya xagga dhaqaalaha meel fog bay gaareen oo waxay la tartamayaan qabaa'ilada waaweyn ee wadanka xagga waxbarashada aad iyo aad bay u soo kordhayaan marka inkastoo ay iska jiraan dhibaatooyin fara badan oo iska yaryar oo dagaal iyo xalli u baahan haddana run ahaantii 20 sano ina dhaafay meesha aan soo gaarnay qoys ama se qoomiyad dalka u dhalatay ama se joogto oo nala siman ma jirto aad iyo aad baan tilaabooyin cad oo muuqda aan qaadnay khaasatan Kamkunji xildhibaannimadeeda gacanta ku dhignay oo ilaahay mahadi xildhibaanku waa Soomaali dawladda hoose awood baan ku leenahay dawladda hoose wasiir baan ku leenahay waliba wasaarad aad u culus haysta marka xaafadaha kale ee Nairobi South Sea qof Soomaaliyeed baa laga soo dartay oo MCA iminka marka run ahaantii horumarka xaafadeenu waxay muujinaysaa heerka xagga siyaasadda aan ka soo gaarnay marka dhalinyaro badan baa iminka u hawoonaysa inay xildhibaan noqdaan inay MCA noqdaan magaalada Nairobi ay ka noqdaan waxa kale toon anigu ku gowaabin lahaa dadka Soomaalida oo kala talin lahaa doorashadu markay dhacdaba kumanaan qof baa baasas iyo baabuur intii lagu gurton Garissa iyo Wajir iyo Mandera la geystaa anigu waxaan oran lahaa dabcigaasi waa in la iska daaya Wajir iyo Garissa iyo Mandera Soomaali baa iska leh ninka ka soo galaya gabnanimada iyo xildhibaannimada iyo senatarnimada iyo MCA-nimada waa nin Soomaaliya wax la tartamaya ma jiraan waxa fiican inaan xoogeen isugu keeno magaalada madaxda Nairobi oo kuraasta baarlamaanka aan ku leenahay aan soo kororsano kuraasta MCA-yaasha aan ku leenahay inaan soo korsano kuraasyo dheeraada oo uu ka mid yahay senatarnimada Nairobi ama se gabnanimada Nairobi inaan u hawoono u tartano taana waxay ku xiran tahay inaan xisaab nagu filan aan ku leenahay magaalada madaxda dalka ee Nairobi ayaa ugu dhaqaala roob wadanka way ka xoog badan tahay gobolada Garissa Wajir iyo Mandera marka la isku daro laakiin se kulay taba anagoo iska leh waxa aan ku leenahay dhaxalka aan ku leenahay Garissa Wajir iyo Mandera waxa noo dheer in aan ku darsan karno inaan ka qayb galno maamulka siyaasadeed maamulka dhaqaalaha iyo maamulka bulshada magaalada madaxda dalka taasna waxaan ku gaari karnaa anagoo iska daayna dabcigan dib u socodka ah ee shicibka maalmaha ugu dambaysa laga dadguraynayo Nairobi oo la geynayo meel aanay deganeen oo haddana ay ka soo noqonayaan waxa fiican inay joogaan oo ay ka qayb galaan ay xoog ku yeeshaan meesha ay degan yihiin muhiimkana magaalada madaxda dalka Kenya oo magaalooyinka ugu waaweyn adduunka ay ka mid tahay ka hor intaan doorashada la gelin isla howl badan ka socotay oo ay ugu weyn tahay dib u dhiska wadooyinka nadaafadda oo kala qashin aruurinta bulaacadihii hadda waxaad moodaa xogaa inuu gaab jiro qashimada laftirkooda meelo badan oo shalay nadiif ah maanta ay qashin qubna ay tahay xilli roobaadna muu jiri karaa waxa la yiraahdaa inta qashinku ku jiro iyo cudurkuna ku jira maxaa la dhihi karaa laftirkeeda wad ka qabanaysaan deegaankii shalay waqtiga iyo lacagta la gelin taasi waxa iminka dhismay dawladda cusub maamul cusub ay yimid maamulkaasi waxa madax ka ah nin la yiraahdo governorka Mike Sonko dawlad cusub uu samaystay maalin dhaweeto marka in fursad la siiyo dawladdiisu ay ku dhisanto dhaqaalihii loogu talagalay ugu horeeyay maalin dhaweeto ayuu madaxweynaha saxiixay marka waxaan filayaa bisha koowaad ee January wixii ka bilaabma in dawladda cusub ay hawsheeda si buuxda u bilaabayso qashinka waa la ururiyaa laakiin nidaam darra ka jirta dawladda hoose ka shaqeyn doonta sidii loo ururin lahaa qashinkaasi runtina bulaacadahan dilaacay in laga shaqeeyo waxa qaabilsan wakaalad la yiraahdo Nairobi Water oo iminka
nin madaxa aanan uusan jirin oo bannaan managing director cusub maamula guud marka loo magacaabo ayaan iyaguna rajaynaynaa inaan is aragno oo waxaan ka qabanno roobabkii faraha badnaana hadda hawshu way sii haleeyeen marka waxaan ku tala jiraa maadaama dowladdii sare iyo dowladdii dhexeba inay hawsheeda si fiican u bilaabayaan bisha January oo xaafadeennana aan u soo jeedayno sidii wax looga qaadi lahaa qashinka looga ururin lahaa si joogto ah looga ururin lahaa sidana nidaamsan looga ururin lahaa iminkana la siiyay baabuur khaas ah xaafadda Kamkunji oo qashinka ka ururiya in la siiyay baabuur dabka damiya oo khaas ah waxyaalo badan oo kaleetana aan ka sii shaqeyn doono sanadka ugu horeeyana aad arki doontaan isbedel weyn xagga qashin ururinta xagga bulaacada nadaafada iyo xagga nabadgelyadaba hadda doorashadii way dhamaatay dawladdu waa dhisan tahay mucaaradka wali waxaad moodaa inay laftirkooda wali way hadlaan wali cadowga muuqdo aysan qaadan sidaas ka dhacay talada baasa maxaa kala laftirkooda ilan dad muuqdo waaye way tartameen waxna way tabanayaan maxaa kaga qorshaysan dawladda runtii shaki kuma jiro mucaaradka inuu qayb wanaagsan qayb libaax leh qayb dhaba uu ka qaadanayo dhismaha iyo horumarka dimuqraadiyadda waddanka waddan aan mucaarad lahayn waddan nool ma aha midda kalena Raila Odinga waa nin soo halgamay qayb weyn oo culus oo muuqata oo la qarin karaynin ka soo qaatay dhismaha dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo sharciga waddanka marka waa nin runtii sharaf iyo ammaan ka mudan dalka Kenya laakiin se waddan kastaba wuxuu ku dhisan yahay waddanka Kenya khaasatan hadii la eego dastuur buu ku dhisan yahay sharci buu ku dhisan yahay sharcigu iyo dastuurka dimuqraadiyadda wuxuu leeyahay ninka madaxda noqonaya madaxweynaha waa in shicibku ay doortaan ninkii ugu shicib badanna lagu dhawaaqo inuu madaxweyne noqdo doorashadii baan dhignay Uhuru Kenyatta baa la soo doortay wuxuu ahaa ninkii ugu aqlabiyad badnaa ninkii ugu dad badnaa maxkamaddu way ogolaatay waa la dhaariyay waa madaxweynihii waddanka waxaana lagu dhaariyay nidaamka dastuurka iyo sharciga waddanka u yaala dimuqraadiyadda aniguna faahantayda xildhibaannimadeedu waxaa la igu doortay dastuurka iyo sharciga guddiga doorashooyinka ee IEBC baana dul taagnaayo waan ogolaanay hataa gobolka uu mucaaradka ah xildhibaanadii laga soo doortay iyo senataradii laga soo doortay iyo gabnadadii laga soo doortay waa la dhaariyo maamulku way haystaan marka macnaheedu waxa weeyaan anagu maadaama aan ahay waddan dastuur sharci iyo dimuqraadiyad ku dhisan mucaaradka iyo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka iyo Mudavadi waa inay ogolaadaan waddanka inuu hore u sii socdo oo ay ogolaadaan in laga adkaaday marka mucaaradka jidka mucaaradka u yaala inay ka shaqeeyaan sidii waddanka loo wanaajin lahaa sidii waddanka dib loogu dhisi lahaa sidii ay dawladda ula tashan lahaayeen dawladdana iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta wuu sheegay diyaar buu u yahay wixii si nabadgelyo ah oo ku dhisan dastuurka sharciga iyo dimuqraadiyadda waddanka inuu diyaar la yahay inuu la fariisto oo la xaajoodo aniguna waxaan ku talin lahaa dawladda inay ka fikirto Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka inay ka fikiraan sidii loogu soo dari lahaa xibna ka tirsan gobolada mucaaradka maamulka dawladda taasna waan ogahay madaxweynaha inuu ka fikirayo diyaar u yahay marka khilaafkan iyo dhaarintan waxban kama jiraan dastuurka waddankana kuma salayso sharciga waddankana kuma dhisna dimuqraadiyadda waddanka iyo xasiloonaanta waddankana way ka soo horjeedaa marka waan u tahniyadeynayaa dadka mucaaradka ah inay ogolaadeen dastuurka waddanka inay ogolaadeen nidaamka dimuqraadiyadda oo barnaamijkii khaladka ahaa ay ku tala jireen ay ahaa in ninka mucaaradka madaxda ka ah si meel been ah oo aan jirin lagu dhaariyo inay joojiyaan way ku mahadsan yihiin waana ku ammaanan yihiin maanta wixii ka dambeeyana waxaan anigu ku gubaabin lahaa inay yimaadaan oo wada hadal u dhex maro iyaga iyo dawladda wixii la dhammaystiri kare la wanaajin kare ee ayagu ay tabanayaan ama se ay sheeganayaanna in dawladdu ay xaliso oo hal jid iyo hal meel in la maro oo ay isu tabaabishaystaan oo ay isu diyaargareeyaan doorashada soo socota iyaga ma cadaynin ma dhihin wixii aan rabno waa joojinay waana markii ugu dambeysay markii Raila hadda aan ka hadlayno fursad kale ma haysto maxaa la dhihi karaa oo loo arki karaa dib u dhigidooda maxaa laga filan karaa
anigu taasi ma ogaan kara laakiin jidkaasi hadday qaadaan waa jid dheer oo aan kasoo laabasho lahayn ayagana khatar buu gelinayaa dimuqraadiyada iyo xasiloonaanta waddankana khatar buu gelinayaa waxay noqonayaan dad fallaaga ah maadaama ay diideen dastuurkii waddanka iyo sharciga waddanka iyo nidaamkii dimuqraadiyada ee madaxda waddanka lagu dooranayay waa un fallaago oo kale marka ma wax sharci oo ay leeyihiin ama se xuquuq ay ku leeyihiin ama se cod ay ku yeelan karaan nidaamka dimuqraadiyada ee waddanka u jira ma jirayo wixii maalintaasi ka dambeeya markaasi anigu kulama taliyeen Raila Odinga iyo asxaabtiisa inay jidkaasi maraan jidkaasi kasoo noqosho male waddanku meel ciriiri oo foolxun buu gelinayaa danuma aha mucaaradka danuma aha dowladda danuma aha shacibka waddanka Kenya marka ayagu hadday wadaniyiin danaynayaan ayatiinka wanaaga horumarka iyo nabadgelyada waddanka inay jidkaasi kasoo noqdaan oo ay ku isticmaalaan dimuqraadiyada jidadka uga furan iyo fursadaha uga furan ayaan anigu kula talin lahaa suuqa hadda islii markaanu ka hadlayno degmada Kamakunji ee laga soo doortay matalayso xildhibaanka ka tahay waa suuqa ugu weyn labaad ee waddanka Kenya dawladdu horta miisaan intee leeg ayay degmadan u leedahay iyo dadka ku nool oo ay u arkaan in tahay dad horumar ama ganacsi sameynaya ama bulshada wax ku soo kordhinaya runtii dawladda aad bay u qiimeynaysaa madaxweynaha ilaa qofka hoose ee dawladda ku jira wuxuu og yahay qiimaha ay islii ku leedahay dhaqaalaha waddanka xagga wax soo saaridda xagga maaliyadda xagga canshuurta dhan kastaba haddaad ka eegto waxa weeyaan islii waa meel muhiima waa il muhiima oon laga maarmi karaynin xagga horumarka iyo dhismaha dhaqaalaha dalka dawladda Kenya iyo madaxweynaha iyo nidaamkiisana waxay doonayaan islii inay noqoto meel suuqaho 24 saac furan oo ganacsigiisa uu sii balaadho meelo badan baa laakiin si anagu aan ka liidanaa xagga maamulka iyo ishabeenta annaga ayaanan aad uga faa'iideysan fursadaha ka jira marka anigu maadaama aan fursad u helay inaan xildhibaan 5 sano dambe noqdo waxaan ka shaqeynayaa sidaan u xoojin lahaa ururka ganacsatada Soomaalida ee islii in la xoojiyo in isbahaysiga la samaysan lahaayeen laamaha kala duwan ee dawladda la xoojiyo oo la sameeyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda canshuurta qaabilsan wasaaradda maaliyadda dhan kastaba in la habeeyo oo ay cod muuqda ay ku lahaadaan dawladda iyo nidaamka waddanka ayaan ka shaqeynayaa tan kalena waxaan samaynaynaa inaan u fududayno dadka ganacsiga samaysta ganacsigana ku jiro sidii ay hawlahooda u wadan lahaayeen xagga canshuurta ha noqoto xagga meelaha kaleete ay ku kororsan lahaayeen iyo dhibaatooyinka ka haysta sidaan u xalin lahayn ama si u fudud lahayn waxyaalahaas oo dhan baan anigu ku tala jiraa inaan is hor fadhiisatana ganacsatada iyo wasaaradaha dawladda iyo wakaalada dawladda ee heena qaabilsan oo aan heshiis muuqda oo cad kala gaarno wixii ayagu ay ka filanayaan xaafadda iyo ganacsatada annagana waxa aan ka filanayno xagga horumarka dhismaha iyo fududeynta hawlaha ganacsiga ee xaafadda waxaa jira xildhibaan kasta deegaanka laga soo doorto lacaga horumarinta deegaanka ah ama sanduuqa horumarinta deegaanka oo loogu talagalay degmadaas inay isku dhisto Kamakunji adaa xildhibaanka ah qiyaastii qorshe intee laga loogu talagalay horta degmadan oo ku baxo ama wadaha loogu sameeyo ama amaanka wax looga qabto lacaga fara badan baa ku baxay islii iyo Kamakunji hadii la eego anigu 5 sanaan xildhibaanka ahaa waan soo koobay ilaa 5 bilyan oo shilin shilinka Kenyaanka ayaa lagu dhisay jidadku waxaa ka mid ahaa Second Avenue waxaa ka mid ah First Avenue Genoa Rungi soo hormara KBS meeshan ahaan jirtay Yare iyo Nomad iyo schoolka secondary Islii iyo Shell petrol stationka meeshan cusub ee Comesa marketka laga dhisayo home mallka laga dhisayo Genoa Rungi waxaa ku xigay Muratina jidkan weyn ee xagga dambe soo mara ayaa ka mid ahaa iminka waxaa gacanta lagu hayaa Third Avenue oo jidka ugu dambeeya ee Maina Wanjigi dugsiga sare ee Maina Wanjigi iyo qaabilsan waxaa weegan gudihiisa la bilaabay Meja Kinyanjui mid la yiraahdo oo Muratina iyo First Avenue isku xiro jid weena jidadka dhaxdhaxe faraha badan afar shan kamid ayaa laga dhisay Kamakunji islii kaligeed ma aha waxaa jirta Pumwani jidad baan ka dhisnay ilaa 12
Islii South meesha hoose laba jidoo waaweyn baa iminka ka socda mid waxa waa maalin dhawta la dhameeyay waa 19th Street 18th Street baa iminka gacanta lagu haya weekend gudihiisa waxaa la bilaabayaa 17th Street iyo ole Sinon in la yiraahdo jidka hormara masaajidka section 3 marka 5 bilyan lacag lagu qiyaasay baa jidadka loogu dhisay waxa kale oo loo dhisay dugsi sare oo farsamada gacanta ah dugsi sare oo waxbarashada caadiga ah waxaana loo dhisay health center xaafadda Kamkunji ah meelo badan baa loo dhisay haddaad barbar dhigto xaafadaha kale ee Nairobi xildhibaanada ka soo gala waxay weydiiyaan sidee ku dhacdaa adiguna inaad 5 bilyan iyo waxoogaa aad heshay 5 sano ina dhaaftay annagana aan baryo tamayno 1 bilyan in xaafadana lagu qasiro marka way dareemayaan xaafadaha kale in culays fara badan iyo dhaqaale fara badan la geliyay xaafadda Islii iyo Kamkunji guud ahaan waxaan ku tala jiraa 5 sano ee soo socota haddii Ilaahay yiraahdo inaan aad u kordhino caawimaadka wixii jidada ee haray inaan dhameystirno klinikiyada ku yaala Islii iyo Kamkunji inaan dhameystirno dugsiga farsamada gacanta in la furo oo ilaa 250 arday ay bilaabaan sanadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo dugsiga sare ee Islii South oo iminka 105 arday qaatay sanadkiina dhaafay sanadkan soo socdo in 250 laga dhigo oo la kordhiyo jidadka soo haray yar yar ee Islii dhan kastaba ha noqoto Islii North iyo Airbase iyo Islii South iyo Californiana in aan dhameystirno oo aan u howlgalno oo ay noqoto xaafad qurux badan oo aan kulligeenaba ku faano Yusuf xildhibaanaad tahay wadankan siyaasi aad tahay wariyana shalay waad ahayd Soomaaliya laftarkeeda waa ka soo howlgashay waa tagtay markaad fiiriso siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya 4.5 annaga wax ku qaybsanaa markii Soomaali laga hadlayo dawladda Soomaaliya intana xisbiya la isticmaalaa maxay kaga duwan tahay 4.5 mar haddii awood laftarkeeda la isku maquulinayo iyadoo shaar loo geliyay ma tahay ma way kala duwan tahay midda kale waxa weeyaan Soomaaliya waxa weeyaan hal qoys hal qoomiyad weeyaan oo Soomaaliya waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin wax ay ku kala duwan yihiin hatta aragtida wajiga ma jirto Kenya waa 43 qoomiyadood oo aan isku af ahayn oo aan isku diin ahayn oo aan isku dhaqan ahayn oo aan isu ekeen iminka مثلا dadka Soomaalidu hadii jeer waxay ka sheegtaan biliiska inkastoo ninka Soomaaliga uu Kenyan yahay markuu ninka kala garab socdo waa la garanayaa inay isku qoomiyad ahayn oo kala duwan yihiin marka isbahaysi wada shaqayn iyo wada jir bay ku shaqeeyaan isbahaysigu na waa gobol oo waxa sanadkan doorashadiina dhaaftay gobolada dhexe gobolada Rift Valley qabaylada ku nool iyo gobolka Soomaalida ayaa isbahaystay isbahayskaas ugu tira batay markii doorashadu ay dhacaysay xisbiga mucaaradkana isbahaysigiisu wuxuu noqday gobolka Galbeed gobolka Nyanza kamida Nairobi iyo xeebta markii la isku daray xisaabtooda tiradooda ma gaarin lamana tartami karaynin isbahaysiga xisbiga madaxweynaha ee Jubilee marka tan Soomaaligu waxay ku dhisan tahay qoys qabiil markuu tartamayo qabiilna aad ku tartamayso waxa weeyaan mabaadi ma jirto wax mabaadiyood isugu imanaysan oo dana guud ahaan oo dhisma dal ma jirto ee waxa weey waa qabiil kana moogtahay maadaama uusan mabaadi lahayn marka dambe labada walaalaha ayaa isku qabsanaysa dun furfurantay bay noqonaysaa marka soo jeed marka Soomaalidu waxay u baahan tahay inay ka gudbaan qabiilka iyo qoyska oo ay isu bahaystaan Soomaalinimo danta guud ahaan imika Islii oo kaleeto Soomaalidu ma kala qaybsan inkastoo qoysas kala duwan yihiin ayagu wada jira ayay go'aan ku gaareen inay soo ceshadaan xildhibaan Soomaaliyeed wada jirnimadaasi marka waxay keentay midnimo iyo culays cod oo muuqda oo la dhageysto oo la maqlo laga dambeeyo xildhibaan Soomaaliyeedna way soo doortay sidaas oo kale dadka Muqdisho ku nool uma baahna inay qoys isu qaybiyaan inay danta guud ahaan magaalada madaxdooda Muqdisho sida ay u dhisan lahaayeen iminkana taasi way soo toostay maalin dhowto markuu qarax dhacay
reer muqdisho oo dhan baa ka dhawaaqay isuguna yimid dhalinyaro rag iyo dumarba isugu yimid oo ka gelgishay diidayna argagixisada iyo waxa qaraxa kicinayo hal meel bay ka soo wada jeedsadeen sidaas oo kaleeto loo baahan yahay in mabaadii danaha guud dhismaha iyo wanaaga midda kalena shacabka Kenya ku nool si kastoo isu neceb yihiin oo ay isaga soo horjeedaan siyaas ahaan way ismaqlaan way kala dambeeyaan hal gudoomiye leeyihiin xisbi kasta gudoomiye leh dadka mucaaradkan naasa taageersan Raila Odinga ka dambeeyaan oo ay ku daba tukadaan kuwana Jubilee taageersan Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayay ku daba jiraan oo ay taageersan yihiin Soomaalidu laakiin isma qalma leh kala dambeyn ma leh wada tashi ma leh marka inta ay ka gaarayaan anigu waan ku gubaabinay waa in la kala dambeeya waa in la is-ixtiraama midda kalena Kenyaanku khaladaadyadii dhacay lagu kala way iska cafiyaan haddaad weliga aad ku dhagan tahay khaladkii shalay lagugu sameeyey dulmigii shalay lagugu sameeyey ma helaysid nabadgelyo haddaad helina cadaalad ma helaysid marka waxaa lagama maarmaana in la iscafiyo Soomaalidu ay iscafiso khaladaadyo badan baa dhacay si xawaayanimay dadku isu dileen oo aqliga galaynin oo bini'aadanimada ka baxsan waxaa fiican in la fariisto oo la iscafiyo markaana midnimo la samaysto la kala dambeeyo la ismaqlo marka wixii ka dambeeyana si mabaadiinimo la isu urursado intii isku fikrada inta isu urursato laakiin qola hadii la isku urursanayo wax ka mushkilada Soomaaliya ma dhamaanayso waayo maanta hadii hal qoys oo Soomaali ay xabadda joojiyaan dagaalku istaagaya ninka Soomaaliga haduu berito subaxdii intay soo toosaan ay yiraahdaan wax dariskeena ma dilayno qoyska naga soo horjeeda ma dilayno si nabadan anagu xuquuqdeena iyo xaqeena ku raadsanayna oo xabadda la joojiyo nabad way imanaysaa laakiin inta ay dadku ay isku dilayaan khaladaadyo hore u dhacay dulmi hore u dhacay waxaan macno lahayn waliba qof aan geysanin oo qof malaha aabihii uu dulmigaasi galay aad ka argoosanayso waxban kama hagaageen waa in la iscafiyaa waa in la siimaada waa in ilaahay laga cabsadaa waa in la ismaqlaayo la kala dambeeya anigu intaan baan ku talinaa Kenyaanku had iyo jeer wadankooda way ilaashadaan marka ay ku dhow yihiin burbur oo aad u malaynayso inay isdilayaanba dib bay isu soo celiyaan oo way heshiyaan way isqabtaan dana ka weyn qoyska iyo qofka ayaa la fiiriyaa wadaninimo qaranka Soomaaliyeed waa Soomaalidu waa inay u danqataa oo ay tiraahdaa waa in wadaniyad la helo laakiin se Soomaalidu iminka way soo bislaanaysaa waxaan arkaa anigu waxa iga muuqda dadaal cusub in midnimada iyo nabadgelyada laga shaqeeyo dadkuna maalintoona waxaan ku faraxsanahay in lagu dhawaaqay dastuurkiin xisbinimo lagu tartamo oo laga tago 4.5 shantaan sano hadii ay ku dhamaato Allah awood leh oo ogolaado saddex maraad soo istaagtay ma soo noqonaysaa kursigan Soomaali baa u haysaa qorshaha horta muxuu yahay qorshahayga gacanta Ilaahay buu ku jiraa anigu saddexdii hore la soo doortana waa la soo doortay shanta sano ee soo socda shacabka Kamkunji baan habeen iyo dharaar u shaqeynaya waan u dhididayaa waan u dadaalayaa midnimadooda wanaagooda iyo horumarkoodan ka shaqeynaya shanta sano haduu Ilaahay nafta noo daayo oo na gaarsiiyo go'aanka dambe ee waxa aan sameyn doono hada shacabka Kamkunji reer Kamkunji baan kala tashan doonaa Ilaahay idankiisa maxaa tala oo dadka hada reer Kenya ama degmada xildhibaanka u tahay anigu waxaan oran lahaa qof kasta waxaan oran lahaa walaalayaal doorashadii way dhamaatay wixii la dooran lahayd waa dooratay marka ugu horeysa anigu nin kasta oo iga soo horjeeday waxaan oranayaa maanta aniga xildhibaan ku mucaarad iyo ma jiro meel kastoo jirtay xildhibaanka shacabka Kamkunji oo dhan baan ahay xildhibaanka dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ahay marka diyaar baan ahay inaan ku shaqeeyo doorashadii way dhamaatay adiguna waqti badan ha ku luminin doorashadii iyo wixii dhacay aan dib u dhisano nolosheena ganacsigeena waxbarashadeena wanaageena iyo midnimadeena aan ka shaqeyno ninkii doonaya siyaasadda inuu galo ama se
tartamo ha isu diyaargareeyo doorashada soo socota ee 2022 laakiin maanta wixii ka dambeeya nabadgelyadeena midnimadeena horumarkeena dhismaheena aan isu nimaano aan ka tashano wanaageena wax cabsinay inaba yaraatayna jirin wadanku wuu xasiloon yahay shaqada dib bay u bilaamaysaa dhaqaalihii dawladda iminka waa dhawaan baa la furayaa dhismihii dib buu bilaabmayaa aan howlgalno oo aan ka shaqeyno sidii aan nolosheena deegaankeena wadankeena iyo qaaradeena aan u wanaajin lahay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayuu ahaa xildhibaanka degmada Kamakunji oo waraysiga toddobaadka marti inoogu ah xafiiskiisa magaalada Nairobi xildhibaane waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaligeedna siisay iyo sida aad uga qayb gashay waraysiga toddobaadka iyadoo ay tahay markii aysan ahayn markii kugu horeysay ee sidan oo kale aan waraysi wadaya aad baad u mahadsantiin waana soo dhaweynaya universalna dadka dhageysta iyo maamulayaasha iyo kulligoodna salaan diran baan u diraya